ismaqal iyo daawasho wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii warbaahinta wadaagsan oo aan saacadahan oo kale idiin soo tabin jirnay qodobada ugu doorka roon ee aan maanta idiin haynana waxaa ka mid ah taliyaha booliska galmudug iyo saraakiil kale oo lagu amray in ay si degdeg ah uga baxaan dhuusamareeb dowladda federaalka Soomaaliya oo sharci u sameynaysa social media dowladda Kenya oo ajenda siyaasadeed u adeegsatay weerarkii lagu soo qaaday hoteelka ku yaala magaalada Kismaayo madaxweynaha Mareykanka ayaa weerar culus ku qaaday Ilhaan Cumar iyo dalka ay ka soo jeedo ee Soomaaliya laba nin oo laga raadinayay magaalada Muqdisho oo ugu dambeyn gacanta lagu soo dhigay waa 15 bisha July daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena maantay fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelka subscribe saaro gambaleelkana daaro si ay kuu soo gaaraan wax walba oo aan channelka soo galino wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sheegay in ahlu sunna wal jamaa soo saartay amar degdeg ah oo ka dhan ah taliyaal ka tirsan kuwa Galmudug sida aan xogta ku helnay ahlu sunna ayaa ku amartay taliyaha ciidanka booliska Galmudug Cabdicasiis Yuusuf Dhagabadan inuu isaga baxo magaalada oo uu soo gaaray maanta dood dheer iyo isku dayo lagu doonayay in ahlu sunna go'aankaas kaga laabato ayaa fashilmay wuxuuna taliyuhu ugu dambeyn magaalada isaga baxay galab dhicii maantay sidoo kalena ahlu sunna ayaa amartay inuu isaga baxo magaalada Dhuusamareeb taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka qaybta 21aad Cornel Sulub labada taliye ee la amray inay Dhuusamareeb si degdeg ah uga baxaan ayaa ugu dambeyntii qaatay amarkaas waxayna gaareen magaalada Cadaado oo ay markii hore ka imaadeen ilaa hadda lama oga sababta keentay inay ahlu sunna amarto inay taliyaashan isaga baxaan magaalada Dhuusamareeb oo lagu dhawaaqay inay taalo gogosha nabadda ee Galmudug isla markaasna ay ka dhici doonto doorashadu xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee labada gole wasaaradda cadaaladda iyo saraakiil ka tirsan maxkamadda dalka ayaa ka shiriyay sidii loo sameyn lahaa sharciyo ku meel gaar ah oo lagu ciqaabo dadka wararka been abuurka ah iyo aflagaadada ku daabaca baraha bulshada ku kulmaan ee internetka shabakada wadaagsan ayaa ogaatay in xubno ka tirsan gudiyada cadaaladda ee baarlamaanka federaalku ay la kulmeen saraakiil ka tirsan hay'adda garsoorka dalka ayna ka dalbadeen in la soo saaro xeerar ku meel gaar ah oo si degdeg ah uga dhaqan gala maadaama ay jirto khatar badan oo ay dowladda Soomaaliya ay rumaysan tahay inay kaga imaanayso Facebook iyo Twitter qof ka tirsan saraakiisha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shabakada wadaagsan u sheegay in 3 jeer arintan laga kulmay waxayna kulamada laba kamid ah ay ka dhaceen xarunta madaxtooyada Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa dhibaato badan ku qabta Facebook oo asaliga ugu weyn ee lagu soo bandhigo qaladaadka dowladda ciidamada iyo sheekooyin kale oo waqtiyada qaar aflagaado iyo dhacdo been abuur ah haatana Kenya wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ayaa durba weerarkii Kismaayo ku baaqday in dhaqdhaqaaqa al-shabaab lagu daro liiska wax loogu yeero argagixisada Monica Juma ayaa sheegtay in weerarkii Kismaayo uu ahaa qayb kale oo beesha caalamka casuusinaysa qatarta al-shabaab iyo in loo baahan yahay in ururkaas lagu calaameeyo liiska qaramada midoobay ee argagixisada waxay soo jeedisay in sida ugu dhaqsiyaha badan golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga hadlaan arinta al-shabaab arinta ururka al-shabaab in lagu daro liiska argagixisada ayaa ah arin siyaasadeed oo ay isu hayaan dowladda Soomaaliya iyo Kenya dowladda Soomaaliya ayaa aad u diidan in al-shabaab lagu daro liiska qaramada midoobay ee argagixisada dowladda Soomaaliya ayaa rumaysan in haddii sidaas ay dhacdo Kenya iyo dalalka kale uga faa'iideysan karaan inay ku beegsadaan shakhsiyaadka iyo shirkadaha Soomaaliyeed waxay si gaar ah uga cabsi qabtaa in Kenya ay arintan kula wareegi karto hantida Soomaaliyeed ee tala dalkaas ayadoo qofkii ay doontaba inay beegsato si fudud u la xiriirin karta al-shabaab wararka naga soo gaaraya Mareykanka ayaa sheegaya in madaxweynaha Donald Trump uu weerar culus ku qaaday Ilhaan Cumar iyo dalka Soomaaliya oo ay ka soo jeedo oo si aad u aflagaadeeyay iyo madaxda Soomaaliya qoraalka Trump ayaa sidoo kale ku wajahnaa xildhibaano kale oo ka tirsan Congress-ka Mareykanka oo kala ah Rashida Tlaib Ayanna Pressley iyo Alexander iyo Ocasio-Cortez kuwaas oo sidoo kale Trump uu aflagaadeeyay dalalkooda waxa uu qoraalkiisu ahaa sidaan way xiiso badan tahay in la arko horumarka ay gaareen haweenka Congress-ka ee xisbiga dimuqraadiga kuwaas oo markoodii horeba ka yimid dalal ay dowladahooda gabi ahaanba burbursan yihiin qalalaasana ku jiraan midda ugu sii xun ah wadamada ugu musuqmaasuqa badan adduunka oo dhan xitaa hadiiba ay shaqeeyaan haddana waxay cod dheer dumarka noocaas ay uga shaqeeyaan dalka Mareykanka oo ah dowladda ugu awoodda badan adduunka sida wax loo maamulo maxay dib ugu laaban laayihiin dalalkooda si ay uga caawiyaan dib u dhiska dowladahooda burbursan iyo dalalkooda ay dambiyada ka dhacayaan kadibna noo soo laabtaan oo noo sheegaan sida ay u soo hirgeliyaan meelahaas ayaa aad garab idinkaga baahan si dhaqso ahna kuma bixi kartaan
waan hubaa inay Nancy Pelosi aad uga farxi doonto inay si degdeg ah u diyaariso qorshayaal safarro oo bilaash ah sidoo kalena Ilhaan Cumar oo ka soo jawaabtay Twitterkeeda ayaa eedayn culus u jeedisay madaxweynaha iyadoo sheegay inay u dhaarteen siday ula dagaalami lahaayeen madaxweynaha ugu musuqmaasuqa badan ee abid soo maray Mareykanka gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Yariisow ayaa shaaca ka qaaday in gacanta lagu soo dhigay laba nin oo sida uu sheegay la doondoonayay gudoomiyaha ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Facebook kaga hadlay qaabka ay ciidamada booliska gobolka Banaadir gacanta ugu soo dhigeen labadan sinin duqa magaalada ayaa shirka amniga caasimadda Muqdisho oo caawa lagu soo bandhigay guulaha ololaha la dagaalanka burcadda iyo mooryaanta hubeysan duqa Muqdisho wuxuu kaloo yiri mooryaanka shacabka dib u geysan jiray Kaaraan iyo Cabdicasiis oo waaranka u jirnaa la soo qabtay isagoo dhaawac ah oo booliska xabada ku ridayay kadibna isbitaalka ku geeriyooday isagoo ka warramay ninka labaad ee la soo qabtay ayuu yiri sidoo kalena waxaa la soo qabtay mooryaan kale oo la raadinayay lagana soo kala qabtay degmooyinka kale Dharkiinley Daynile iyo Yaaqshiid oo uu ka mid yahay Cabaas Xasan Maxamed oo muddo dheer laga raadinayay degmada Dharkiinley Yariisow ayaa ku goodiyay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah raggan wuxuuna yiri waan wadaynaa ololahan waxaana uga digaynaa kuwa caadaysta in nidaamka dawliga iyo awaamirta ciidanka iska indhatira nidaam iyo dowladnimo baana wada deeqday ee amniga caasimadda aan ka wada shaqeyno daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee aan maanta idiin haynay inta aan warkaan iyo war ka xiiso badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa annagoo isku duuban shabakada wadaagsan sidaas iyo nabadgelyo